maayirka magaalada Burco Maxamed Muraad xogayaha fulintiga qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta dawladda hoose ee Burco ayaa ku dhawaaqay in la rameeyay khilaafkii u dhaxeeyay iyaga iyo gaadiidleyda isku rogooyinka ciida guraah mas'uuliyiinta dawladda hoose oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah labada meelood ee hudheelka Balaasa halka toga kaga beegay iyo Saleebaan Kulul halka uu toga kaga beegay inta u dhaxaysa oo ay ku yaalin labada bridge ee Burco ee waaweyn haba yaraatay inay tahay mamnuuc oo aan laga guri karin wax ciid aan laga guri karin si ay u badbaadaan labada bridge waayo dadkii ugu dambeeyay magaalada Soomaaliya labada bridge waa halis bugeli ma hadan gaaro dawladdu ay dawladda hoose ka leedahay ma aha anaga wax loo gaara iyo waxaan u diidino gaara isku rogooyin waxa weeye danta labada bridge ee waaweyn ee magaalada Burco geesta kalena mas'uuliyiinta dawladda hoose waxay shirkoodaasi jaraa'id ku sheegeen in kooxo shufto ay dagaal baan ku hayaan xoolaha gaar ahaan riyaha taasoo maayirka Burco dignin adag u diray kooxahaasi isla markaana faray saldhigyada boolisku inay ka howlgalaan hawshani awal riyaha magaalada habeenkiina way marin jireen maalintiina way socon jireen qaylada maanta ka soo baxaysa guriyadii iyo xaafadii ka soo baxaysana waa qaylo dheer oo riyihii la sheegay in olole uu ku soco olole lagu hayo oo dadku olole ku hayaan amar waxaan ku siinaynaa saldhigyada degmada dhammaantood inay fiiro gaar ah u yeeshaan oo arrinka la daba galo dawladda hoose Burcanahay iyo golihii deegaanka iyo maamulkii degmada iyo aan xareynay riyo la ka qabanaya toona ma jidaare bisinka wadada barida dhigo riina la soo raaco maala Safar Abdullahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.